ciidamada ammaanka ee sida gaar ah loogu xil saaray wax ka qabashada xaaladaha ammaan ayaa maanta lagu arkayay wadooyinka xaafadaha magaalada Muqdisho ayadoo sidoo kalena ciidamada ay howlgalka ugu ballaaranay saakay ka wadeen wadada dheer ee Makaal Mukarrama oo ah wadada ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho ciidamada ayaa la arkay ayagoo mid u baaraya gaadiidka isticmaala wadadaasi ayadoo aysan jirin wax dhibaato ah oo dadka gaadiidka la socday ee kala kulmaan ciidamada ammaanka ee ku shaqada leh baaritaanada ammaanka wax looga qabanayo ay ka wadaan magaalada Muqdisho afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed gaashaanle sare Cabdullaahi Xasan Bariise oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay si wanaagsan u socdaan howlaha amniga lagu sugayo isla markaana ciidamada ammaanka ay si wadi doonaan howlgallada inta laga soo celinayo ammaankii kala dambeyntii dalka sida aad la socotaan muddooyinkan dambe ciidamada amniga qaranka dhammaan qaybahooda kala duwan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa loo xil saaray inay magaalada amnigeeda ka wada shaqeeyaan in wax laga qabto ragga lebiska ciidamada kala duwan wata ee hubka sida macna darrada dariiqyada ugu la marmarayo in nabadgelyada guud ahaan wax laga qabto intaas muxuu ahay baryahan dambe la waday shaqadaasi runtii si wanaagsan ay u dhacday afayeenka ayaa daboolka ka qaaday in ciidamada qalabka sida Soomaaliya aysan siyaasad shaqo ku lahayn waxaana sheegay in aan la joojin doonin howlgallada ayna been abuur tahay hadallada qaar ee la isla dhexmaraya ee sheegaya in ciidamada ay ka gaabiyeen howshooda waxaana inta ku daray in ciidamada ay meesha ka saareen wax badan oo dadka dhibaato ku hayay dadka shacabkana ay dareemayaan arintaasi abriyahan muxuu ahay su'aalo ka imaanayeen oo wararka dadka muxuu ahay aan ehelka u ahayn danaha ummadda Soomaaliyeed ama aan amniga iyo kala dambeynta raaliga ka ahayn inay sheegayeen in dariiqada la marmarayeen ciidamadii hawshaas hay waa kala tageen shaqadina ma socoto taas waxaan rabaa markaa inaan beenino aysan waxba ka jirin in muxuu ahay la wareesto shacabka degan magaalada Muqdisho oo 24 saac u arkaya in ciidamadoodii sidii loogu talagalay u shaqeynayaan inay nabadgelyo gurigoodii iyo geedkoodii ku gaaray in la wareesto isla markaasna muxuu ahay loo gudbiyo ciidamada bahalkii muxuu ahay dadweynaha war wanaagsan ee aan loo gudbin war ku turkiteena howlgalladan ay ciidamada ammaanka ka wadaan qaybo kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa ka qayba howlgallada amniga lagu sugayo ee dawladda Soomaaliya ka wada caasimadda dalka ee Muqdisho Saacidi Maxamed Xasan TV-ga qaranka Soomaaliyeed Muqdisho